assalaamu calaykum. Maxay saacad ugu dhaganin supermarketyada caalamka badankood? Maxaase caanaha gadaal meesha ugu dambeysa loo dhigaa? Maxayse shirkadaha waaweyn oo la yaqaano shelfiska dhexe u yaalaan badanaa alaabtooda? Kuwaas iyo kuwa kaloo badan waxaa ku qaadal dhigaynaa maanta barnaamijkeena 10 wax oo laga rabo inaad og tahay inta supermarketyada ka soo adeegan. Waqtigu waa muhiim waana waxa ugu qaalisan uu aadanuhu haysto. Saas darteed badanaa supermarketyada caalamka hadda u fiirsatay ma qabaan saacad darbi ama daaqad banaanka laga arki karo. Sababtuna waa si aadan u dareemin in aad daahdo waqtigu ka dhamaaday ama habeen la gaaray. 2 waxyaabaha ugu badan oo dadka subax walba ka soo doontaan dukaamada waa maxay? Haddaba waa ukunta, caanaha, rootiga iyo khudaarta. Saas darteed siyaasadooda waxaa ka mid ah in lagu kala dhigo 4 koono oo dukaanka. Fikradda ka dambeysana waa si aad dhammaan ugu soo wareegto qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay si aad wax ziyaado u soo qaadato. 3 dadka badankood waxay ogeyn shelfisyada supermarketyada waaweyn gadaashooda inuu jiro suuq kale oo go'aaminayo maxaa adi arkay oo gadan kartaa horta. Waxay u kala qaybsamaan shelfisyada 4 ilaa 5 ama 6 ugu badnaan. Waxaa la kala dhahaa meesha isha ku aadan, meesha gacanta ku aadan iyo meesha hoose kor. Caadi ahaan waa yaryihiin dadka shelfiska hoose wax ka soo qaato walow ay yaalaan waxa ugu raqiisisan ama gacantooda kor u laaco meelay gaarin. Badanaa waxa ugu gadnin badan meesha isha ku aadan ay ku xigto meesha gacanta ku aadan. Shirkadaha dhaqaalaha haysto waxay hanti ku dhiibaan si alaabtooda loo dhigo meesha indhaha ku aadan oo ugu gadminka badan. Waana tan keenta productyo cusub oo badan in la arko inay u suurtagelin ama suuqa caalamka ku jiristiisa ay ku fashilmaan. Isla markaana kuwa kale meesha ugu fiican yaalaan. 4 caanaha, ukunta, dhammaan waxyaabaha dhaco maalmo yar gudahooda waxaa loo raacaa ruulka ah kan dhici raba soo hormari ha laga takhalusee, kan kale oo cusubna gadaal mari. Sidaan horey u soo sheegnayna dadka badankooda waxa loogu talagalay qaataan walow ay jiraan dad gadaal ka soo qabsado. Haddana wax ma ahan tiradooda haddii la barbar dhigo dadka horey ka soo qaato. 5 is-agdhig waxaan kala maarmin. Waxaa laga yaabaa inaad caadi u aragto ama in la iska saaro shelfisyada alaabta. Laakiin research lagu soobshay dad badan oo adeeganayo wuxuu cadeeyay dadka inay isla qaataan waxaan kala maarmin hadday is-ag yaalaan. In ka badan hadday 2 meel kala yaalaan. 6 haddii tii hore ay ahayd waxaan kala maarmin is-agdhig. Haddaba tan waa wax isku mid ah is-agdhig. Kan ma ku cajabiyey? Haa, kanna wuu ku cajabinahay qaado ama soo baroobay. 7 check out-ka ama meesha lacagta laga bixiyo waxay leedahay ahmiyad u khaas ah. Waa meel uu qofku taagnaado xoogaa intuu safka ku jiro. Haddaba waxaa loogu diyaariyaa wax yar oo iska muhiim ah lagama maarmaan ama iska macaan ama ilmaha jecel yihiin. Yaa way qofka aan meeshaas bateri ka gadan ama nacnacbal. 8 halka ilmaha indhahooda ku aadan 1.20 mitir intii ka hooseyso waxaa ku buuxo badanaa toyska ilmaha, shukulaatooyinka, nacnaca. Daday customer iyo kana u yihiin alaaba meesha loogu diyaarshay. 9 birta adeega weynta waxaa loogu talagalay inay ku dareensiiso inaa wali wax badan gadan oo 1 iyo 2 joogin. Barooba la subshay oo birta xoogaa la weyneeyay waxay sababtay 19% inay ziyaado qaateen dadka. isla markaana intaas kuma eka sidoo kale badanaa mutuleelada dhulka waa yaryariisu u dareema qofkan inuu dhaqsanayo una dahsaneen. 10 haddaa jeceshahay carafta rooti hadda la dubay oo albaabka supermarketka markaa gasho sanka kaa qabsanayso keligaa ma tihid. Waxay diyaar u yihiin waxaa rabto inay ku siiyaan. Waxay ku buufshaan qudaarta spray saad fresh ugu malayso. Waxay daaraan music si uu qofka moodkiisa u tooso. Waa siday u malaynayaan. Waxay isticmaalaan isku dheelitirnaanta kalarada